ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku bahoobay galbaash ee ka soo jeeda gobolada Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose, Galgaduud iyo Banaadir oo kulan ku yeeshay magaalada Cape Town ee dalkani Koonfur Afrika ayaa baaq cabasho u jeediyay odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda deegaanadaasi, iyagoona dhanka kale dawladda Soomaaliya ugu baaqay in goboladaasi ay u madax banayso dadka deegaan ahaan ka soo jeeda isla markaana u dhashay deegaanadaasi. waxaan halkan ka direynaa baaqaan u direynaa dhammaan ummadda deegaanada u dhaxeeya Shabeellada Hoose ilaa Galgaduud. waxaan leenahay ummadaas ma jiraan wax idinka hortaagan inaad xaqiina raasatiin ama qof idin diidani ma jirto, mana jirto qof aad ku eedi kartiin inaad adinku raasatiin oo aad u kacdiin inaad xaq u leedihiin. waxaan idin leenahay u kaca oo raasada xaqiina. waxaan kaloon u direynaa baaq dhammaan dhaqanka deegaanadaas inay noqdaan dhaqan u dhogan shacabkooda waxa ay rabaanna u sheega dawladda kulana xisaabtama. cabashadan caaw aan ka hadlayno ama aan gudbinayno baaqa wuxuu yahay imaamka iyo ugaaska in ay u istaagaan dadkooda dhibaatada haysato ama waxa lagu haayo ama waxa ka maqan. wax walba waxay leeyihiin dhaqan loo raaco. waxaan rabnaa imaamka iyo ugaaska inay u istaagaan dhaqankii aan ku naqiinay. guddiga qabaqaabayaasha oo galbaash oo juhdigan iyo waqtigan badan bixiyayna waxaan leenahay maad wax ka gaarto anoo kamid ah macalgeedii guddiga kamid ah. waxaan leenahay guddiga waqti ku bixiyeen waxay gudbinayaan waxaa kamid ah tuugma maahana waxay gudbinayaan baaqa ay leeyihiin gudbinayaan message ay dirayaan waa waxay leeyihiin siyaasiyiinta la hoosgeeyay siyaasadda la hoosgeeyay dhaqanka inay naga joojiyaan ee dhaqanka iyo siyaasadda dhaqanka la kormariyo. hadlayo magaca guddiga qabaqaabada galbaash waxaan caawa cadaynaynaa annagoo ah jaaliyadda gobolka Banaadir ka soo jeeda ee ku nool Western Cape South Africa inaanan raalli ku ahayn in xaqeynii laga tago, inaanan raalli ku ahayn in gobolladeenii wax maamula laga hor istaago. waan u taaganahay caawa wixii ka dibna mas'uuliyad ayaa naga saaran. federaalka waxaa la yidhi 2 gobol iyo wixii ka badan ayaa soo dhisan karo macnaha maamul goboleed saasina dawlad goboleed ku yihiin. dadka caawa meeshaan iskugu imaaday waxay degaan xeebta ugu dheer Soomaaliya oo ka soo bilaabanayso marka korkeeda ilaa ay Xardheere ku tagayso. waxay degaan gobollo oo wabiyo iyo bad iyo kheyraad intaba leh oo caasimadda ay ku jirto. marka caawa waxaan halkaan iskugu imaanay inaan u istaagnay inaan dhisano deegaanadeena cidna aanan marti uga ahayn. ujeedadaan iskugu imaanana caawa waa saas. ma aha cabashadii ugu horeysay, waxaana jira beelo badan oo cabashooyin ka muujinaya habka loo dhisayo maamul sameynta gobolada dalka Soomaaliya. Xasan Kaafi Maxamed Shire, telefishinka caalamiga Universal, magaalada Cape Town.